dheeraad ayaa laga helayaa shil gaari oo maanta ka dhacay magaalada Gabiley ilaa inta la xaqiijiyay 2 qof ayaa ku dhintay halka tiranta ka badan ay ku dhaawacmeen shilkan gaari ee maanta ka dhacay magaalada Gabiley ayaa yimid kadib markii gaari nooca raacada ah uu si kadiisa ku dhacay gaari kale oo nooca xamuulka qaada meydadka labada ruux iyo dadka kale ee ku dhaawacmay shilkaasi ayaa la geeyay isbitaalka weyn ee magaalada Gabiley intaasi kadib ayaa waxa goobta uu shilkan ka dhacay gaaray ciidamada taraafikada wadooyinka maamulka Soomaaliland ayagoona gurmad u fidiyay dadka ay waxyeeladu ka soo gaartay shilkaasi ehelada dadka ku waxyeeloobay shilkaani ayaa si weyn kaga naxay dhibaatada soo gaartay dadkooda ciidamada taraafikada maamulka Soomaaliland ayaa marar badan digniino ka soo saaray darawalada sida xawliga u kaxeeya gudaha magaalada Gabiley ayagoona sheegay in la ganaaxi doono darawalkii jabiya amarka ka soo baxay ciidamada taraafikada maamulka Soomaaliland hase yeeshee darawalada qaar ayaa arrintaasi ka dhigaadeegay taasoo sababtay in marar badan ay soo laabtaan shilalka noocan oo kala si kastaba aatay magaalada Gabiley ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa ka dhacay shilalka noocan oo kala iyagoona shilalkaas ay ka dhasheen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac